Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaan ka hadlaynaa 5 arrimood oo laga rabo arday walba oo online-ka wax ku barta. Haddii aad online-ka wax ku barato, 5tan arrimood aad iyo aad muhiim kugu yihiin. Lambarka koowaad, dhar xiro sida adigoo u socda banaanka ama u socda jaamacad. Maxaa loola dalinayaa inaad xirato dhar sida adiga oo banaanka u socda? Ma adiga lagu dhibayaa? Ma waxaad doonaysaa inaad online-ka soo gashid adigoo qaba fanaanadii aad xalay ku seexatay ama dhar aan wanaagsanayn? Maxay tahay sirta ka dambaysa inaad dhar fiican xirato? Sirta ka dambaysa inaad dhar xirato ruuxaantii maskaxdaada iyo adiga ahaanba waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad diyaar u noqoto inaad wax barato, waxayna adkeynaysaa sharciga waxbarashadaada iyo inaad si toos ah wax u barato. Lambarka labaad, samee waxa aad maalin walba samayso. Waxaan ula jeedaa macnaha samee waxa aad maalin walba samayso oo maalinna dhar ha soo xiran, maalinna si kale ha u dhaqmin, sidii joogtada ahayd ku soco. Lambarka saddexaad, iska ilaali baraha bulshada inaad isticmaasho markii aad online-ka wax ku baranayso. Ma wanaagsana, way ku mashquulinayaan, waxayna kaa mashquulinayaan wixii aad ku socday. Sababtoo ah waxbarashada online-ka badanaa sida midda galaaska kale maaha, sababtoo ah waa wax socda oo lama istaajin karo, oo weliba ma weydiin kartid qof kula fadhiya, oo macallinka waxa laga yaabaa inuu intaasoo qof oo meelo kala duwan jooga inuu wax u dhigayo. Marka social media iska fogee. Lambarka afraad, qaado nasasho ama wax yar oo nasasho ah. Waxay kaa caawinaysaa inaad wixii u soo nasato oo kadibna sidii sida jaamacadda oo kale ama xilligii aad galaaska xaadiri jirtay oo kale inaad haddana ugu soo talagasho inaad diiradda saarto ama inaad ku caajisin screen-ka ama dhalada. Haddii maantoo dhan aad dhalada hor fadhiisatid, waxaa dhici karta inaad ku caajisid ama xoogay inaad daaliya iska dareentid. Marka nasasho yar samee. Lambarka shanaad, samee meel aad ugu talagashay oo qolkaaga meel ka mid ah, ama haddii aad meel yar awoodi karto oo routine ku ah oo aad maalin walba meesha aad soo fadhiisatid. Haddii aad meesha lahayn, ruuxaantii waxba kuma hagaagayaan. Sharcigan oo dhanna ma sameynaysid, sababtoo ah haddii aad meel toos ku aaweydo ma soconayso oo wixii system-kii ama process-kii ma hirgelayo. Marka meel adiga ku gaara samayso oo aad maalin walba soo fadhiisatid oo aad ugu talagashay inaad wax ku barato. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan subscribe noo saar. Mahadsanid.